shir saddex maalmood socday oo ay ka soo qayb galeen irgooyinka kala socda gobolada Koonfur Afrika ayaa ku soo dhamaaday magaalada Johannesburg iyadoo meesha lagu doortay maamulkii hogaamin lahaa ururka JWL muddo sanad ah. shirkan oo looga hadlay sidii ururka dhalinyarada ka soo jeeda jubbooyinka ee Koonfur Afrika ku nool ayaa waxa Koonfur Afrika loo doortay Khadar Dalmar halka ku xigeenkiisana loo doortay Maxamed Ismaaciil Sheekh. shirweynahan ayaa lagu falanqeynayay maalmihii ugu dambeeyay qorshaha sanadkan horyaala guud ahaan dhalinyarada jubbooyinka iyo sidii wax u wada qabsan lahaayeen, waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan, culumaa u diin iyo ganacsato Soomaaliyeed. dhalinyarada shirkaasi ka hadashay ayaa ballan qaaday inay wax weyn ka qaban doonaan dhibaatooyinka gobolada ay ka soo jeedaan. munaasabadii lagu soo afmeeray shirweynahan ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxaan ku faraxsanahay furitaanka shirka ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ama Jubbaland in aan intii ka qayb galo aad iyo aad u farxadin. waxaa wiilasha yaryarka maanta loogu taaniyadaynayaa horumarka ee bilaabeen waana ku gacansiinaya waxaan maleeyaa shirkadii iyadoo idin ahlaad imaamkii ururka kala soo qayb galay tilaabada ugu horeysa inaad tilaabsateen ilaa tan JWL waa urur dhalinyaro ah aan siyaasi ahayn ahna urur loo aasaasay in uu daryeelo bulshada iyo shacabka ku nool Jubbland. isku xidhka bulshada goboladaas joogo inaan u sameeyno meeting, inaan u sameeyno tartamo quraan ah ardayda ka wada keenay gobolada oo dhan oo isugu keenno meel alla iyo meesha munaasabka ah una sameeyno xaflado iyo tartamo quraan ah una sameeyno kubadda cagta iyo inay dheeraan dhiigay ay isugu dhaxgalayaan hadday noqoto diini iyo hadday noqoto maadiba labadaba waan ka dhisan doonaa bulshada insha Allah. munaasabadii lagu soo afmeeray shirweynahan ayaa dadkii ka hadlay waxayna dhammaantood hambaliyo iyo bogaadin u direen dhalinyarada ururkani ku midaysan, waxayna sidoo kale kula dardaarmeen inay muujiyaan dulqaad iyaga oo ku dhiirigeliyay inay hawshoodii sii wataan. Cabdulqaadir Axad, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Johannesburg, Koonfur Afrika.